سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا حشمتا يتحكلين تمودنا يكوحولا كنال كينا عافيماتكا دكتوركا عافيماتكا قويسكا بانوينين سلامينا كسو دوادا كليب كينن وينو كوا دواداقي دونو أما أينو هونتي iskugu bayaaminayno warqad ay noo soo qortay haweenay Soomaaliyeed oo kamida dadka inta badan ku xidhan kanaalkeenan caafimaadka ee dhagtarka caafimaadka qoyska. haddaba warqadan waxaynu ka yara afeefan doonaa waa haweenay waa xaas isla markaana waa hooyo Soomaaliyeed. dabcan kanaalkeenu sida aad ogtihiin waxa uu furan yahay qoyska, arrimaha qoyska ee secretka ayaynu ku wada wadaagnaa shabaabka iyo dhalinyarta arrimahoodana waynu ku soo qaadanaa iyo markaa kuwa bulshada. dabcan markaa su'aaluhu hadday xasaasi noqdaan ama qaarkood wax inta badan la yaabay inaan u arkin horeynu u tilmaamnay oo markaynu casha aynu clipkeena ku wada jirno dadkayna daawanaya iyo dadkayna ugu xidhaniba waxaynu ka dhiganahay arday xiisad saynis dhiganayso oo kale. markaa macnaheedu waxa weeyaan waxyaabo badan oo laga yaabo in la qariyo ayaa daaha laga qaadaya. arrintaa waa inaynu aad u ogsoonaanaa. haddaba qoraalka walaasheen intaynaan u gelin ayaa carabta ayaa waxay tiraahdaa odhah ay mahmahaan ama murdo ahaan ay soo qaataan baninta badan xasuustaa oo ay odhanayso kasratul masaas tudribul ihsaas. wax kasta oo kugu bataaba caadi bay kula noqdaan. xataa shay marka bulshada ay ka xishoonaysaa hadduu adiga kugu bato dhagahaaga ku bato caadi buu noqonayaa. sidoo kale waxay u soo qaataan shayga badsataaba wuu ku badsadaa ayay yiraahdaan. arrintaa waxaynu uga afeefanaynaa waxyaabo waxa laga yaabaa marka adigu maqasho ama dhageystaha inagu cusub uu maqlo inay qariib ku noqoto oo uu la yaabo ilaa acuudu billah ma waxaasaa la sheegaya, ma haweeney baa waxaa odhanaysa, ma nin baa waxaa odhanaya. sidan dabcan xilliyada qaar aan kommentiyada ka arko, laakiin adduun casriyaynu ku jirnaa. maalin kasta cashar cusub iyo nolol cusub iyo wax la dadi jiray ayaa dabada u soo baxaya. markaa dabcan waxaynu arrintaa aynu uga afeefanaynaa in wixii waxa ku anfacaya baynu ka qaadan doonaa ee naga anfacaya hadday tala caafimaad noqoto, hadday noqoto tala qoys ama family, hadday noqoto tala bulsheed, mid nololeed iyo mid mustaqbaleed haddii Ilaahay ka dhigo. aynu hoos ugu daadegno warqada walaasheen say u dhacayso. walaasheen waxay tiri waxaan ahay haweeney Soomaaliyeed oo xaas leh. arrin ayaan la cadilanahay ama aan la dhibanahay. ninkayga ayaa wuxuu iga codsadaabay tiri arrin markaa aniga dirqi igu ah oo dhibaato aanan markaa ku faraxsanayn, laakiin waxay tiri anoo indhaha isku haya oo markaa aad uga xun arrinta noocaasa ayaan marka u iga dayn waayo xilliyada qaar ku dhacaabay tiri. arrinkaas haddaynu hoos ugu sii daadegno waxay odhanaysaa ninkayga ayaa in badan waxa iga codsanayay inaan xubinkiisa taranka aan u leefo ama afka u geliyo. arrinta noocaasa in badan baan ka cudur daartay. xaaladaasi waxay soo gaadhay ilaa haddana ay taagantay inuu gurigaygu ku tumo. markaan arko inaanu iga daynayn ayaan anigoo aad u dhibaataysan oo markaas aanan anigu raalli ka ahayn ayaan ficilkaa sameeya. arrinta noocaasa barnaamijyadan baan in badan daawaday oo aan dhageystay. haddaba waxaan maqlay in xanuunada qaar laga qaado xubinka ninka oo la taabto ama afka la gashado in xanuun laga qaado ayaan maqlay. ee waxaan doonayaa tala caafimaad iga soo siisaan arrinta qoyska ku saabsan iyo arrintaas sidaan uga tallaabsanayana aad igala soo talisaan baan doonayaa bay tiri. waa haweeney Soomaaliyeed oo runtii sidaad ka arkaysaan qoraalkeeda xaasla arrintaas ayay ka cabanaysaa. arrintaasaynu markaa hoos ugu daadegayna haddii Ilaahay ka dhigo. arrinka noocani dabcan wax uguba maaha. culimada ayaa la weydiiyaa, wadamada inta badan reer galbeedka ayaa laynaga soo draft gareeyay. waa wax laakiin inta badan iminka nolosha update-ka ku jira oo ku badan. haddii aynu markaa hoos ugu daadegno marka koowaad xubinka taranka ee ninku haddii aanu xanuunada STD-ga lahayn oo aanu dee boog lahayn oo aanu nabar lahayn, xubinkiisa taranku uu caafimaad qabo, xanuun markaa uu gudbinayaa ma jirto oo uu salmi yahay oo uu nadiif yahay. laakiin arrinta xagga waxaan loo yaqaano human ethics-ka ama medical ethics-ka ibni aadanka Ilaahay baa sharfay, way sharfan yihiin. labada qof ee lamaanaha ah ee isqaba xad buu leeyahay romance miskoodu iyo inay qaabka iskugu reexaynayaan. meelaha qaar baa jirta laynaga reebay haddaynu dad muslim nahay, qaabka dadka gaalada ah ay ugu dhaqmaan ama bilaa xadka reexaysiga iyo istimtaaca
iyo wada baashaalku xad buu inoo taagan yahay laakiin meelo inaga reeban baa dabcan jira arrintaas ibni aadamnimadaynu kusii soconaynaaye baashaalka ama israaligelintu waxa uu ka yimaadaa wax marka koowaad labada qof raalli ku yihiin mar hadday wixiiba wax lagu reexaysanaya ay tay waa waxay haweeneydina reexa ku helayso markaa xaaska ahayd ninkiina ku helayo laakiin wax qofka dirqi ku ah ama ku dhibaataa waa inaga reeban yahay arrintan diinteenna islaamku way fogaysay meel hoose ayay dhigtay wax qurux badan arrinka noocaasi ma aha xagga ibni aadamnimada iyo caafimaadkana qofka morality-ga xagga psychologically markaynu ka eegno qofku wax aan isaga raalli gelinayn oo dhibaataynaya inaad ku samaysaa waa itigiska caafimaadka way ka baxsan tahay ama anshaxa way ka baxsan tahay ama akhlaaqiyaadka suuban way ka baxsan tahay walaasheen waxaynu aada ugula talinaynaa in ay arrinka noocaasa heer hadday gaadho reerku inuu dumo oo markaas sidaa ay markaa ugu dulqaadatay laba dhibaato ay kala dooratay inuu gurigu dumo iyo inay arrinkan yeesho way ku saxsan tahay marka taa la eego guriga oo dumaa aad iyo aad foolxumo aada u xun buu dabcan tilmaamaya haddaba arrinkan noocana isaga ayay markaa noqonaysaa in ay si caqliyaysan oo markaa degan ay arrinkan noocan ay tahay raalli kama yihi ee walaal arrinkaa ay naga daa weliba haddii anigu qalbigaygu aanu markaa mabsuud ku ahayn hadday ka fursan weydo waa inay markaa cid ay aad ugu sir qasato oo markaas isagana sirteeda aan ka sheegin isna markaa ay isku dhuun daloolaan waa inuu sheegtaa waa haddii iyada uu waxba ka qaadan waayo sida warqadeeda kusoo qortay dabcan in badan bay tiriigadaa wax waa ka qaadan waayo arrinkaas haddii ay taasu sii dhacdo markaas dabcan dee waxay noqonaysaa inay culimada la xidhiidho oo arrinka noocaasa inay ka tagto iyo inay la joogto inay markaa culimada u celiso oo markaa culimadu jawaab ay siiyaan inay ka faraxalato ama ay ka joogto laakiin dumista gurigu mar kasta waa la ilaaliyey caafimaad ahaan waa la ilaaliyey caqli fiican waa ilaaliyey diinteennu meel aada u sarraysa oo waxba ka sarraysa ayay dhigtay walaasheen waxaan aada ugu rajaynayaa arrinta noocaasa inuu tanaasul ka samayn doono odaygeedu isla markaana uu fahmi doono qaabka wada reexaysashada ee dadka muslimiinta ahi dabcan meelaha qaar baa ka mamnuuca labada qof waxaanay ka raalli wada ahayn istimtaac ma galo haweeneyda qayb ka mid jidhkeeda ama meelaha ka mid jidhkeeda waa laynaga reebay oo qaar ay ka mid tahay meelahaynu runtii mararka qaar xusnay wixii wax la isku waafaqsan yahay oo lagu wada farxayo oo lagu wada reexaysanayo oo guriga farxadiisa iyo noloshiisa iyo mustaqbalkiisu ka qayb qaadanaya ayay doonaynaa inay noqoto aad iyo aad bay runtii walaashan aynu ugu rajaynaynaa in arrinka noocaas ay ka bixi doonto waxaanu rajaynaynaa walaalkeenna xaaskaas ninkeeda ama saygeeda ahi inuu markaa fahmi doono dareenka